بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان maanta wuxuu soo dahay akhbaaraad culus ayaa soo baxaya oo aan rabay bal inaan saa u raadiyo. waxa la sheegayaa dilka Yahya Sinwar oo Israa'iil ay dishay. sida dabcan arinta ku suurowday bayaan ma soo saareen dabcan dawladda guud ahaan Israa'iil sida arinta wax u dhaceen. bal intaas insha Allah ta'ala faafahin doona iyo Aljazeera sidaas oo kale macnaha waxay ka tiri. waxaan kaloo ka hadli doonaa nacam Faransiiska iyo Ingiriiska ad umalayso Israa'iil inay kala jihaysanayaan hadallada dabcan muuqda ee kore tan waan faafahin doonaa insha Allah ta'ala. Imaaraadka oo diyaarad markaa gargaar sida u dirtay reer Gaza una daadinaysa gargaar iyo su'aal arinta laga keenay. aan soo bilowna hal mar arintan Mareykanka oo si toos u soo banbaxaya yani qarqaris iyo macnaha meesha anaga ma joogno iyo istikhbaaradan ku caawinaa iyo diyaaradaha iyo kada iyaan macnaha iyo wixii la midka ah ay mareysay hortii laakiin hadda waa dawladda Mareykanka oo dajinaysa fiidiyoda caadi loo soo duubaya saraakiishooda Netanyahu ayaa arkaysaan iyo saraakiisha Mareykanka ciidamada Mareykan ah ayaa hadda waa qalabkii la keenay ayaa gudaha jooga Israa'iil ayagoo markaa Israa'iil caawinaya si toos Netanyahu iyo saraakiisha Mareykanka aad arkaysaan qarqarin iyo xogaa wax xeerin iyo waxaan arkay oo aan daawaday nin macnaha dadka taxliiliye kamid ah oo dhahaya mar hore laga tagay in xogaa wax la xeeri diblomaasiya si toos ah hadda Israa'iil macnaha waxay sameynaysaa sawir oo iska qaadaya iyo rankaasi saraakiisha asaga muhiim yani hadaan sawir ku soo koonwaas kuwana yani Mareykanka gantaaladii difaaca ay keeneen ciidamadoodana waa kuwaasa dhulka joogaan ayaga bahashan howlgelin doona si toos ah dagaalka u galeen camal marka muhiim ninka falanqeey wuxuu leeyahay caalamka diblomaasiyadda mar hore ay ka dhamaatay Israa'iil waxay sameeysaa uu leeyahay kan kaasi disha wadankaasi ku dusha yani sharciyad caalamka ka jiri karta malahan maxaa yeelay cidii sheeganaysay reer galbeedka inay sharciyada caalamka ilaalinayaan ayaa waxay u ogolaadeen inay waxay doonto ku sameeyso taasi dabcan hadda arintii waxaad u malaynaysaa Faransa inay leedahay xogaa bal Israa'iil u kaaday goorma laakiin Lubnaan marka laga taabtay horay caadi ahay Faransa waxay leedahay Israa'iil meenan ogeen waa sida Macron ayaa dhahaya Israa'iil meenan ogeen in lagu dhisay ayba u jirto qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo macquul aynan ahayn inay khilaafto qaramada midoobay Faransa dhahaysa dhinacan kale Ingiriiska waxaad arkaysaa oo dhahaya waxaan ka fakaraynaa inaan cunaqabateen ku soo rogno argagixis ahaan ku shabadayno labada wasiir ee Smotrich iyo bin Gafir waa labada wasiir marka la fiiriyo ugu muhiimka san dawlad wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga yani sirtii iyo amnigii kala dambeyntii iyo maxay iyo yani wasiirkii u xisaarnaa iyo wasiirkii hadda lacagta labadaas wasiir waa labada wasiir ee ugu xaq jirka sana lagu leeyahay gudaha Israa'iil waxay doonaan ku hadlaan waxay doonaan sheegaan macnaha hatta kharkharsi ma jiro almuhim Ingiriiska waxay leeyihiin macnaha waan baaraynaa bal inaan yani ku soo rognay wixii la midka marka ninka falanqeeya hadalkiisa hadal cajiib u ahaa xaqiiqatan kaliya waxaan kugu soo koobi karaa caalamka mar hore laga tagay diblomaasiyad iyo in wax la xeeriyo iyo sharciga jira iyo UN-ka sida iyo qof walba meeshaad ka soo gaarto waxa doonta ka cun Ethiopia saasan filaabay arintaas inay ahayd waxay Soomaali ugu daysay oo ilaa hadda ugu dayso oo ugu adkaysanayso طيب wargelin muhiima ma jeceshahay in waalidka oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan imaan karin xaramka barakaysan loo gudo acmaasha cumrada bisha fadliga badan ee cumrada haddaba haddii ay jawaabtu haa tahay waxaa lagu hayaa culimo ku sugan magaalada barakaysan ee Maka al-Mukarrama oo u gudaya cumrada waalidka inta lagu jiro gudashada acmaasha cumrada waxaana lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabkii ay u dhacday cumradu haddaba ka faa'iidayso fursadan muhiimka oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda oo ah ebereber 966 547 642 taasi wata waxaan u soo gudbaynaa Imaaraadka iyo waxa laga yiri waa diyaarad Imaaraati ah reer Gaza u daadinaysa gargaarkaasi ilaa reer Gaza xaaladooda aad u liidata waagi ilaa iyo hadirtan bal hadda waxa baarida socota ay sheegaysaa in Israa'iil laazim ay tahay in lagu soo oogo in ay ku talagal macnaha waliba ila dambiyada caalamku kamid yahay dhahan Soomahan in qofka ama dawlad ama shacab si ku talagal loo gaajeysiyo oo loogu dilo
marka in hadirtan sida muuqata yani laazim ay noqonayso in loo soo saaro dowladda Israa'iil inay tahay kuwa geestay xasuuq waliba ku talagal ah hortii waxa la isku hayay ma ya xasuuq lama dhihi karo maxaa ku talagal ma ahan iyuu yahay ikada laakiin hadirtan muddadan sanadka waxa la arkay hadalkii wasiirkii difaaca Yoav Gallant ee Israa'iil ee waa hore inuu run yahay oo ah in ay fuliyeen kana dhabeeyeen inay gaajaysiinta ilaa hadda way socotaa markaas waxaad arkaysaa dowlad hebela waxay leedahay ana xogaa gargaarsiinaa ma ii fasaxaysan Israa'iil xogaa xilligaas ma joojinaysaan duqeynta hawaan joojinaynaa galab inta kale gaajaysiina lagu hayaa shacabkaasi طيب taasi waa taa dhinaca kale haddaan usoo gudubno arrintan weyn ee la soo warinayo iyo sida wax u dhaceen مؤشرات كما يبدو التي تجمعت خلال الساعة الأخيرة تدلل على أن يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد تم اغتياله في عملية للجيش الإسرائيلي لكن كل المؤشرات أيضا ازدهار تشير إلى أن عملية سيدا وحو دعين الجزيرة فافحين بدنا بحنيسا المهم لكن نعم بيان كامل أو صوبحي أو دولة إسرائيل أي شيء معها عندما إسرائيل شيء إن الدلين سوي عن أركي سووا إيجه سوي أنا نفسي كيان أركي ما نخون كرا والغيابة إسرائيل أنتو حليه مركز الله في وجهي سقاب كأسمى يسني هاي الكيس يسنكيس المهم مركز سيدا الله في سوي كا بخل كيا بخل وأسرع نفس كذا وأركي سمركز سوي كا إدارة وأرت كلي المهم ونخون كرا خف كرا وإكان كرا وحود عين ما أهان حتى استخبارات أهان أي جرادين أنا كهلن ما أهان حتى الزير صار هذا جيش إسرائيل وحوليه هاي معناها استخباراتكم أنا نحلي يعني الدجال رفع كرعي أو أي أيجا إيو دجاليهن حماس أي سكوري ماذين أيا واحد عوام حي إن إسرائيليين ته آد معناها يعني لا إسقعابي إسقعابين تحسوا حكاينتي اسمهن دتك كسو حبضين أي كجلي لأيهن إيريس أمي كداخل أيهين إن لو قدميه واحدة هبكة كليه وين إسرائيل استعماشه وهبين إيماني طبعا ودن كي ربطيه عدة ربطيه وجود ديسو سو كمان المهم إريدا مدافع لو قرعي قرية مركز دول كلا دقيق سويرك واحد كوار كيسا مركز قف كاسي يحيى السنوار أو إك أو نجحان جيسها كسارينهين أو صار أمبر بريد تقريبا لكن كعافي ما تقبه إنتن مركز قرب كيسا أركيسا قربه عادي وجهي صوت أركيسا عادي بص بضا أنا أي وجهي صارن حتى ولا نهي كرا معناها أيامها الوقت واحد يروح لقرقره أو أي جسميه مركز صور لا سميه ونخون كرا وحقول نخون كرا إن قف أو إنه يهي وحين نخون كرتا حقيقة إنه السجن نفتركي سيهي ويدعي كرتا وحتى دعي كرتا طبعا إن أذا صور عاديا أو صنم أو كلا سميه إنه يهي محايا لي دولة إسرائيل لها درتن شر جرائد يعني بيان كذا ما إنا سمين مركو عليه نسيس تدفع أو أن كنت لقال أهين أيام ماشي هاسي طبعا weerarka uga dhacay kadibna waan duqeynay hadii ciidamadiina u tageen waxay heleen macnaha ninkan Yaxya Sinwar oo ek oo sida meed u ah labada nin waxay ku tilmaamayaan midkooda inuu yahay wiil oo asaga adeer u yahay oo aanan inta badan yani ka zuuli jirin oo mar walba la socon jiray sidaas oo kale way qaateen say sheegeen meedadkooda oo waxay leeyihiin macnaha waan baarayna baardiya socota marka kulay saacadaha soo socda waan arki doonaa nacam ilandii adeegiisa way hayaan oo muddo dabcan xabsigooda ku jiray marka sida ahaataba arinta waan arki doonaa biidin Allah taala laakiin hal mar bal aan fiiriyo waxa ka soo kordhay khaasatan arintaasi inta hadda aan video ku jira macnaha ma laga yaabaa inay dhaheen waa sax waa asagii ama ma dhihin inkastoo hadda lama bicidsanayo dabcan waxaan u jeedaa idaacadaha sidaas ayay u warinayaan haddana aljazeera hadal kale oo cusub weeyaan idaacaddii kale ee Israa'iil ayaa haddana warinaysa arintaasi okay waxaa haddana soo baxaysa hadalkan inuu run noqon karayo يعني warbaahinta oo asaga ku jira saad arkaysaan u fiirsada meeshaad marto u fiirsada asaga ku jira meeshaad martaba okay aan sii socdo hal mar oo sawirkii afan ikaadi gacanta waa kana saacada ku dhagan garabka imaamad inay tahan filaya ayaa u saaran kulay sawirka guud ahaan idima tusi karo sida u yaala marka la fiiriyo laakiin waad arkaysaan idaacadaha sida isu soo tarayaan nacam haddana idaacadaha Israa'iil dhammaan way warinayaan idaacadaha Aljazeera Alcarabiya Mim Middle East Eye aad iyo aad loogu soo celinaya yani taqriiban waxaan ku dhihi karaa meel walbaad marto asaga laga hadlayaa meel walbaad marto waad arkaysaan wixii ka soo kordha insha Allah taala arki doona biidin Allah taala laakiin lama bicisanayo marka la fiiriyo hadii qof oo inta meel la ku jiray oo ciidamada ugu awoodda badan caalamka ay sida ugu hareeraysan yihiin korkiisa gudihiisana ay joogaan marka
كل واحد بعيدة معناها أو هذا يعني حسن نصر الله وكله لا يابي أحد إسماعيل هنية وكله لا يابي أحد لكن يحيى سنوار أي نفس الكود الله يابنا سيدا أنت مدة نكان معناها وكوب حسن كرا سيدا أنت مدة إنه كهلي كريم يوحي لميت كا ما ندعي كرتا طبعا ودعي كرتا لكن أخبار سجن أو كاملة أو لحقيقين دون سوينا ما دام ميدتكن أي شيء إني قاتين لكن أخبارات كمان سياسي شيء يعني ولا دق تقريبا وسكنو أنت هاد كوجت حلقة عن دوبايو هذا أبدا وهذا لا بدك تزيد حتى أنت كوجت مركا أنت سنكسو كوبايا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته wargelin muhiima ma jeceshahay in waalidka oo dhintay ama xanuunsan oo sariiryaal ah oo aan imaan karin xaramka barakaysan loo gudo acmaasha umrada bisha fadliga badan ee umrada haddaba haddii ay jawaabtu haa tahay waxaa lagu hayaa culimo ku sugan magaalada barakaysan ee Maka al-Mukarrama oo u gudaya umrada waalidka inta lagu jiro gudashada acmaasha umrada waxaana lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabkii ay u dhacday umradu haddaba ka faa'iideyso fursadan muhiimka oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda oo eber 967 مركز الفوزان لتحفيظ القرآن وعلومه ودوني هاجاكتو هوديدو فرانتو أديغونان هاوشونو هويغاغا جوغا أيا مركز الفوزان وحاو ديار كولي هاي إنو أونلاين كوغو برا قرآن كريم كاي حفظين تيسا أحكام تجويدك أخرين تاي قرالك أو أهي قادة أحاديث تاي أدكارتا وحانا هالكا كوغو ديارا معلمين خبرات سريسا أولي باريستا قرآن كريم كاي علوم تيسا وحاد مكالا حريري كاريسان نمبر كشاشة دكاغا مغضا مركز الفوزان لتحفيظ القرآن وعلومه